هشيس كان أو مرايكن كسمايي أبراهام مرايكن كوضع دور دولة بالله يهودا وهشيس لبا قرب له سلام خطبتي وربك قال لي قرب سياسية يا قرب دينية هشيس كان وقرب كي سياسية لكن واحد ضبيع له قرب كي دينته وانا تنمي كلا صاصة هاي كانتين السفارة دينا لكن لقفرو سانو شيء إننا ودعبي مركز الدولة لها هشيس قال لك علي سفارة هذا بيت المقدس ميجين عاصمة يهودا هراء أيجين ورشلي ميانا فلسطين العبور رينيني مدح دانو هداي مدحوينها تاي هداي وزيرة تاي وحي آي الطوبين بالهيا أو فلسطين أي كنت تاجريان وإسكو قرب تاجيان أيال هيا حولان روريني والله عقبان روريني وصومالي ودم باورسي والصومالي لان هرمود كاي ومدح لا هر صعدي ورنحيس بدلي وحتى كبس يدري إن صوماليا waxa la yiri dudun buu arko dudun waa qaarkoodna waxay u dhalaa waxa la yiri waxani waa dudun oo waxa sameeyay aboor oo aboorkana qandhooftiisa ayuu ku dhisay dudunta inta leeg marka wuxuu yiri waa yaab iyo yaabka yaabki waxa yaab noqday walkeedii in yahuud oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka waramay waxay yihiin inay noqotay qoladii ugu horeysay in ictiraaftay yahuud baa in ictiraaftay waa yaab حسكسيا بدن سفارة أنجيسني قدس أنجيسني بركان أنا وين شوقو أنا قارع كدجنايا وعن خطيب كأهم ده هذا دير لقى بلا وقت إن عقال أو مدحوينها إلا إيوه ما أنت من بركان أيام كفت بديني وهذا كان كي يقول هاي وحي النصيحة أنا أركاي حق أنا أركايو ومضى أنا أقول نصيحين أيوه مدح لا أقول نصيحين أيوه أنا جو أبال أجر إلهي كجدونية أنا عدنا كجربين أبالا كجربين أنا بريرة يا وحي جسوا جارة يا عي يا دبعتها نو بريرة يا وحنا لا هين أب إن أنا مرك هالكلام مبضى وقلنا صحيح وهذا كان كي جوي أرنتاس وعن صدا أولها أفري الله باتنكي من بركان دوشيسة وعن كذا الله خطبت كسب سنة دولة دي هراء وهجاميني مدحوينه موسى بيحي ودولك واحد كاملة بيحي والدولة كلها شيء دولة ده جار كاملة هل كان كقال وأنا أركاي أن أرين مدن إلا جاه الله أرين مدن إلا توسيو أرين مدن إلا براروتيو دلهان يدينهان يوم ضهان با أن دولة دن عصب مركي عدالتي بلا كهر وحلوق عن هذه مسلمين فلسطين يدل كودي ان لغا ساريو ان دولتنا يسو دوينيسو يابا كوخدا يا كليه اعتراف هدي لنا اعترافه انغو arrinta waan soo dhaweynayna khalaasada hadalkooda saas baa leemo ma aragno waan soo dhaweynayna laakiin wada hadal iyo اعتراaf baa ka horeeya waxay arintaasi hordhac waxay ahayd gogol xaad loo gogol xaarayay marka arintan dhacday waxaba ka sii dareeba marka haddana oo dhacayba yahuudi ay Soomaaliland اعترافتay yahuudi inay اعترافتay Soomaaliland waa yahuud hadda la soco waxa taa ka sii daray in Soomaaliya waxa la yiri dudun buu arko dudun waa qaarkoodna waxay u dhalaa waxa la yiri waxani waa dudun oo waxa sameeyay aboor oo aboorkana qandhooftiisa ayuu ku dhisay dudunta inta leeg marka wuxuu yiri waa yaab iyo yaabka yaabki yaabka yaabki waxa yaab noqday walkeedii in yahuud oo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka waramay waxay yihiin inay noqotay qoladii ugu horeysay in اعترافتay iyadoo اعتراafkaasi أو ميسك صارنا سيدا وركا كوهيو إلا يا وقت عقال وقت رياله وقت سيرانيو وقت أو جوغي مصبحي يهود اعتراف كيدو مركا وربا نمان قافس كجرو الدنيا دي وداني هاي كي يخيحصان ايسا وعيد الباب كفر ترادين ايسا مرايكن كلي مدحا وكسيتو اياها يهود ديار باي مركا وربا الله هاي إني اعترافان لكن مدحوينياشا صودنا way xishoodeen inay yiraahdaan yahuud baan اعترافتay way ka xishoodeen laakiin madaxweynaheena imika ay noo soo qaaday waxay ahayd siday kuwaas uga xishoodeen inuu uga xishoodo waayo wax dad la hor keena maaha
arrintaasi markii ay dhacday haddaba waan halkan ninkaasi waana yaab buu yidhi iyo yaabka yaabkii yahuud baa ina ictiraaftay waa yaab waxaase ka sii yaab badan in safaaraddii aan geysanay qudus aan geysanay qudus geynta la geeyey safaaradda macnaheedu waxa weeye geynta la geeyey qudus safaaradda maxay noqonaysaa macnaheedu iyadoo yahuuddu dhibaatada intaan leegeen soo tilmaanay ay geysteen macnaheedu waxa weeyaan yahuuddu iyagaa iskale baytulmaqdis dhulkana iyagaa iskale iyagaa xaq u leh falastiiniyiintuna waa dhaalimiin xaq darro ku socda oo boob ku socda in la leeyahay wey macnaheedu waa sidaas wey waana khidlaan waa hoojin walaalaheenni muslimiintii aan hoojinayno oo aan dhabarka ka jebinay oo aan hoojinnay oo aan markaa ku wiirsanay aan ku wiirsanay halkaan dhibaatadooda kala qaybgeli lahayn nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dhegaysta almuslimu akhulmuslim madaxdu waa dhegaystaan xadiidkan almuslimu akhulmuslim laa yakduluh walaa yaxqiruh wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam qofka muslimkii waa qofka kale muslimka ah walaalkii ma xaqira buu nabigu yihi sal allahu alay wasalam qofka muslimkii walaalkii ma xaqiro mana hoojiyo hoojintu waxa weeye isagoo la ii kaalmee inaad u kaalmayn weydo inaad cadowgiisii oo ka xoog badan aad ku eegto adigoo markaa wax u qaban kara ama wax u tari kara inaad ku eegto inaad ku wiirsato iyo inaad cadowgii gacan siisaana maxay noqonaysaa almuslimu akhulmuslim laa yakduluh walaa yaxqiruh ma hoojiyo oo kuma wiirsado oo cadowga kuma eego bal haddaad u raacda ka waran oo aad kaalmo siiso cadowgii aad kaalmo siiso ood kaalmo xaggii aad garab siiso gaalkii walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu gaalkii aad gacanta siiso ood isaga taageerto isagoo muslimkii madaxa kaga fadhiya oo carruurtii yaryarayd iyo xamastii sida loo galay aad ogtihiin oo cid ka qarsoonayna jirin war shalay miyaanan falastiin lacag ururinaynin shalay baan lacag ururinaynin madaxdeennu hadday madaxweynaha tahay hadday wasiirada tahay wixii ay duubeen baa la hayaa codadkii ay duubeen oo falastiin ay ku taageerayaan oo ay isku garab taagayaan ayaa la hayaa xoolaan ururinay oo lacag baan ururinay oo soomaali oo dhan baa ururisay oo somalilan baa hormuud ka ahayd oo madaxdaa hor socday war maxaa isbedelay mayna kuwii madluumiinta shalay ahayn shalay mayna madluumin ahayn shalay maanan u heelinaynin maxaa keenay maanta inaan hoojinno wabitaali waxaan ka cabannay somalilan waxay ka cabatay soomaaliya waa la nalaayay baa layidhi diyaaradaa lanagu garaacay barahayagii iyo beerahayagii iyo guryahayagii baa lanaga barakiciyey hantidayadii baa baabaaday dulmi ayaa laga cawday billaahi calaykum war dulmiga inakoon galayni muxuu yahay dulmi baad ka cabatay intaa leeg oo ka falastiin loo geystay aan meelna kaga dhacayn meelna aanan kaga dhacayn marka loo eega dulmiga halkaa ka dhacay dulmiga somalilan sheeganayso ee aan la sheeganayo ee siyaad barraan noo geystay laleeyahay oo diyaarado nagu garaacay oo una barakiciyey oo una laayey bal adigu nisbada waa in intaa leeg bal barbar dhig ilaa imika ayaan heefaynaa ilaa imika ayaan taallooyin u samaysanay ilaa imika ayaan leenahay waa lana laayey war ummad muslimiina oo walaalaheena oo dhibaatada aan ka soo warannay loo geystay maxaan ugu dhaga hadlaynaa maxaan ugu dheeldheelaynaa maxaan dhulkoodii yahuudan u siinaynaa oo markaan ilaahi subxaana wa tacaala suurat lfaatixa oo rukni arkaanta salaada ka mida aan ragcad kasta akhriyayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daaliin waxaan ilaahi subxaana wa tacaala weydiisanaynaa kuwii ilaahay u carooday oo yahuuda iyo kuwa lumay ee dariiqii xaqaha ka lumay ilaahay subxaana wa tacaala jidkooda inuuna ina marin ee dadka wanaagsan ee saalixiinta jidkooda ilaahay ina mariyo
ولا ليال وعوي عداد أدقو حصل الستال ليدي يا ده ولا كان تاكسي تاكو وتاكي أنا وظلم ذان ديدي وحنا وان ظلمين حقيقة تمد مركا ما أنا عقل لهين وردتكم أين تدو حاخريا هين وما تاريخ لمين هين إن وما هرو مر قادو oo dalku barwaaqo gaadho oo wax wanaagsan la helo oo wax fiican laakiin halkaad ka doonaysi waa halkee walaalayaal ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu icdilu huwa aqrabu litaqwa walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin calaa an laa tacdilu icdilu huwa aqrabu litaqwa nacaybka soomaali ay isnacab tahay oo qolaba qolada kale ay nacayso waxaa muuqda in diintii la iskaga baxo inay in yar u jirto oo la yidhaahdo kuwaas hadday muslimiin yihiin annaguna waxaan noqonaynaa gaalo kuwaas hadday jannada galaan annaguna waxaan galaynaa naarta waar wax muqadasa oo la ilaashanayo mayna jirinba maanan kitaabkii qur-aanka aynoo dhex olin war miyaanad akhriin سورة المائدة مسلم كوايو قال وايو يهودي وايو نصارى وايو آيات طلع آيات تاكلين آيات قعنسين آيات سكايات كوا آيات سكوينيسا محاد سكوينيسا الولاء والبراء هالكومري ولا ليا ولله كعصنا وعن لها وعن مظهر دولة سوماليلاند ومدحوينه ugu horeeyaan leh wararimaha eega oo dib ugu noqda nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam diinu nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immati almuslimin sahabi Jabir ibn Abdullah al-Bajali wuxuu yiri baay'atu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam ala iqami salah wa ita'i zakah wa nushi لكل مسلم والنصيحة ظلمه عربهم بوكانا ظلمه أن كد عن عربهم بوكانا نعذر بوكانا نحرست اللون كفر أنه كانيا مسلمين تي أردنين الله عليه تنو أيو كانيا ورحتها عربت هشيس كلاقى شي يهودا دور دولدات با هشيس لقلي هشيس كان أو مرايكم كسمايي أبراهامك مريكان كاوضا دور دولدات با لقلي يهودا وهشيس لبا قرب لي سيدان خطبتي هورا كقار لي قرب سياسية يا قرب دينية ما نمتي هورا واني قال كان كقار لي هشيس كان هو قرب كي سياسي قال لكن واحد دليا له قرب كي دينته وانا تنمي كلا صاصة هاي كانتين السفارة دينا لكن لقفرو سانو شيء انينا ودعبي مركز دولدها هشيس قال لقلي سفارة هذا بيت المقدس ما يجين عاصمة يهودا هراء أيجين دمان تود نيمي كويد لعين أرنتن إيمي كدعضي بقول يا دوري يا كنتن دولة وقالوا بدن باكسر جست يهودا وعلاقات كوجري وبقول يا كنتن يهودا يا دولة ودنا ذكر كوا قالا يهودي بو يسقوا علامة دي سي كوفية دي سي وطا هوتيل ما سوق لك كرو والاريا هذا هوتيل كشرابا ما وحكعنا هوتيل كاسو حرميا سنة dadku adduunyada uga yakhyaxsadeen waaya niman dugaagay noqdeen oo caruur iyo dumar leynaya wad arkaysaan waxa imika Lubnaan ka dhacaya war dadkii noocaas ah ma kuwaaba sokeeyay noo noqday wixii gaar xataa adduunyada joogay ma kuwii ugu liitay ayaa sokeeyay noo noqday ma kuwaabaan garab siinay war ilaahan ka cabsano war ilaaha khaaliqa aan ka cabsano wal mas'uuliin adaatihiin dalka iyo diinta iyo ummadaba mas'uul baad ka tihiin ilaahay kaga cabsada laakiin ilaahay ka cabsada dalkiisa yaad baramarto oo laga sheegay ilaahay ka baqa ilaahay ma waraaba dadka lagu khooxiya in la yiraahdo siyaad bara hore u yiri ilaahay ka baqa ma wax lagu khooxiya ma waraaba dadka lagu khooxiya
وإن لا إرادة دين تسير إلا دون الله قالوا ولا ليالو وأروح وهيان قف كسر يسقوا قاون وحقاقا وبارقبا بو إلهي سر تاقي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة مدحبوها حداد مدحهاyd waxa la waxa umada aad mas'uulka ka tahay baad yaa lagu joojin maalinta qiyaame yaa lagu soo taagi marka waxaan ku soo ururinaya aan ku soo gabagabeynaya nabigeenu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri taqu dhulm fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wa dhulmiga iska ilaaliya dhulmiga iska ilaaliya dhulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaame مجديال وي إلهي سبحانه وتعالى وعن كبرينا إلهي سبحانه وتعالى إنه حقا ينقص إلهي سبحانه وتعالى ينقص ضباله وعن إلهي سبحانه وتعالى ويدي سنينا مظهرة صومالي لو طلينا مالك السوي جوغان قال هانكو الصومالي لان أطليا إلهي سبحانه وتعالى حقا ينوافجيه إلهي صدق خير كوجر الدنيا آخرة المسلمين إيا ضدك إيا دلك إيا الدين تبوجره إن إلهي سبحانه وتعالى وافجيه إن إلهي حقك صوت باله إن إلهي سبحانه وتعالى يعني واحد هداي خير لا يهين إلهي أو توسيه أو إلهي دبضا طريقة توسن أو كتوسيه ومدنا خير ككوهجان شعب توسن وضن تودي دين تودا إن إلى شرع وواحد ويان دين تودا برتاء وفهمه وكل رغمه إلهي سبحانه وتعالى كدقه